السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر وناكسن، صبح وناكسن، ظهر وناكسن، عصر وناكسن، مغرب وناكسن، عشاء وناكسن، وقت والبا يكون هاي وناكسن. الحمد لله الذي أماتنا ثم أحيانا ثم إليه نشور. وعسوبة نوسو بريوان نبت قبا نبت قب كذا بتهب كذا عفمات كذا ما شاء الله تبارك الله. إن كفائديسو دول مجددك هاي كفائديسنين أدويد وجبا يا بنات. إن ما شاء الله تبارك الله قفل بقو فيديو كان في رسنايو ظلمك قلبك هذا كان نظيفي، حقدك قلبك هذا كان نظيفي. علامات الساعة لو جرى إلهي مالنتينا مالن غير قبتا وقتنا وقت غير قبا الله كديق اللهم آمين. إن الله يرحم موتانا وموتى المسلمين ما شاء الله تبارك الله. إن أنت كل متي ليبيا أي أنت كل متي مغرب ولا عليه المسلمين تأ فردوس الأعلى شهداء وايه فردوس الأعلى إلهي هكورابيو مقابرة جماعي عندهن كو أرقني قفل بنفسي تاجنتها إثبت بادي نفتاد بدباد سو بالرؤ شقيسو ما شاء الله تبارك الله. علامة الساعة الصغرى والوجراء تاس لا شك وايه قرح ضو دينعا كلا كسو وريكتو ونو دمان له waxyaabo aan weligeyn maqliin iyo waxyaabo bini aadamka ka xishoodo banaanka lala taagan yahay oo cad ilaahay inuu ku hideeyo aniga i hideeyo awlaada noo hideeyo walaalaha hideeyo muslimiinta oo dhan wada hideeyo ama soo hideeyo ama hidaayo kusoo dejiya ka wada aan ku duceysanayo yaanaas marra xaaladda waa xaalad khatiir ah la dhex taagan yahay. waxaa arkaysaa ummadii wax cajiib oo lala dhexyaacayo waxaad arkaysaa qasfiga oo ama dhulka dadka la go-aayo oo batay biyihii iyo daadadkii oo batay xumaantii oo xumaan laga dhiganin oo la xalaalaystay waxyaabo badan oo mucjisooyina lagu jiraa. calaamaadta saaca bidaayadiisa miya dhexdiisa miya nihaayadiisa miya ma ogin laakiin waxyaabo weligeen aan arkin weligeen aan maqlin oo laga xishoon jiray aa lagu dhex jiraa. ilaahay hana asturo, ilaahay awlaada ha noo asturo, ilaahay idinka ha idin wada asturo, ilaahay muslimiinta ha wada asturo. ilaahay naarta iyo jannada dhildhiil ma u abuurin, naartaas oo soo dhaaranaysa dhildhiil ma usoo dhaaranayso, jannadaas oo wactamaysa iyadana dhildhiil ma u wactamayso. maasha allah tabaaraka allah. ilaahay kuwii fardoosal aclaa isku wada arka ilaahay ha naga dhigo. naftaada badbaadso naftaada adabsaa ku dhahaya. maasha allah tabaaraka allah. intaas waa dardaarankeygii iyo ducadeydii muslimiinta u duceynayay. intii Soomaaliya ku dhimatay guryaha dumaa la lahaay eegana jannada allah ka wada waraabiyo. anaga dhimasho iyo dil iyo dhiig ma noo yaro. dad walaale oo waxay isku dilayaan la arkin aaba hadda dhex taalo oo waaba is dhamaynaynaa hadda gaalaabana soo dhex galayso. Soomaaliya cajiibaan haysta. ilaahay ducada aan baadino baroor diiq ah duco u samayno sidii roob istisqaa ama roob doonka loo dukado ducada aan u samayno banaanka ha loo soo baxaa idin leeyahay. inta qaranka joogto inta qurbaha joogtana qof walba gurigiisa ha ku duceysto. subxaan allah wax cajiib ah Soomaali dhex taala caalamkana wax cajiib masaayib ka dhex dhacayo. ilaahay hanoo wada fududay allahumma aamin. intaas waa ducadii iyo waanadii iyo muslimiintii u duceynay nafteyda u duceynay adigu ku duceynay allahumma aamin. ilaahay hanoo aqbalo. maanta waxaan rabaa inaa wax yar video idin dhageysiiyo. anima jeceli reactionada markaa bixinayo inaa videoya dad soo qaata laakiin waxyaabaha qaarkood oo adiga cinta qaadsan tahay oo diin la-aanta ee masalan sida ziyaara sheekh fulaan ama ziyaaradii sheekh hebelo ama qabr hebel la aada waxa Soomaali hadana caada u lahayn. markii gadaal loo noqdo 90 iyo wixii kasii shisheeyay wixii lagu soo dhaqmi jiray. maasha allah tabaaraka allah salaatu ala rasuulillah. haddana caadadaas ilaa ay hadda dada haysto wax oo caadi ah waa wax diinta ku saleysan ma ahan wax bidce ah waaye laakiin diintiyo cad inaad maxaa la dhahaa si kale u fasirtid ama kitaabka inaad si kale u fasiratid wax cajiib ah waaye. sheekh badbaadaa soo arkay oo quraanka suurad ka sheegaya aayad ka sheegayo yoom muayyan ama maalin muayyan ay sheegayo iyo saddex maalin muayyan ah ama oo u khaas ah oo laga baxsanayo yaa isniin yaa jumca yaa khamiis u dhahay laga baxsanaya magacaada inta warqada ku qortid intii ugu xiran inaad soo gaarsiyo waxa laga yaabaa inay wada arkin social media wixii way iska wada bateen. qof walba fataawo iska bixinaya. anaga shuyuuqa leenahay oo sheekh umar ugu horeeyo shuyuuq badan oo sharaf laha leenahay oo afka Soomaaliga wax lagu weydiiyo oo hadii arrimo ka soo galaan ay ku kala dhigdhigayaan cilmi leh oo cilmigii aakhiro cilmigii adduunyada noo bartay. laakiin adiga ina wax walba ka hadasho cajiib. sheekh badbaadahan hore u soo arkay aniga ma ka soo bixin weligii reaction. hadda kahor waxaa arkayay
basal iyo toon iyo barfuun asoo kasoo hadlaya waxaa laga yaabaa anima kula yaabin waqtigaas leen waxaan ugula yaabin asagaa laga yaabaa inuu xanuunsanaa oo kusoo caafimaaday saasuu dadku ugu soo dhex gudbiyey laakiin waxyaabaha qaarkood waxyaabo badan oo lagu caafimaadaa jiro oo laakiin socialka ah ula imaan karin oo social media ula imaan karin oo waxyaabo qarsoodi iyo waxyaabo eraya qaarkood inaa la gambata ay tahay subxaanallah marka haddii qofka oo wuxuu rabo iskaga hadlaya cajiibay leedahay hadda diintii faraha la galay shuyuuqdana waxaan jeclahay inuu videogan gaaro oo sheekh badbaado arrintiisa aad iyo aad looga soo hadlo waxyaabahan iyo su-aalahan uu ka jawaabaya ayaantan arrintiisa aad u dheeraatay shuyuuq ka cilmi badan oo ka waaweyn oo ka da-weyn oo ka cilmi badan oo ka maskax badan oo in ka dheer soo waxbaratay aan qabnaa annaga codkiisa waxyar idin dhegeysiinaya sheekh badbaado wuxuu sheegay iyo wuxuu ummadda ku faafinayo waxaas waa wax bidce eh subxaanallah ilaahay hana asturo allahuma aamiin qof walba markuu dhaho waxaa raba iska sheegaya dadka ula imaanaya haddana dadkii waxaa ku jiro dad iska iimaan daciif eh hadduu biri waxaas heli waayo uu ka hadli doono bal codkan ila dhegeysta waxyar dahab iyo doolarkaaga qiimo badan casharka waxaas iyo wax ka qiimo badan buu ku siinaya walaalaha qaar ka mid ah ama dadka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa noloshu inay ka istaagtay wax u kala socdanaysa jirin waa inay adi nolosha ka istaagtay mumkin waxaa laga yaabaa inaad dukanin buu alla bariga badanin ama nolosha ka istaagtay qofka waxaa laga yaabaa xasad ku dhacay inuu keenay ama sixir loo sameeyo shayaatiin u sameeyo ilaahay ma kuu qorin mumkin ama wax kale inay ku keeneen baa laga yaabaa kuwaas ayaad baabi'inaysaa oo dhulka la gelaysaa maxaa lagu baabi'inaa adigoo waraaqdan isticmaalaya insha allahu tacaala warqada isticmaalaya ilaahay asraarta wuxuu inoo dhex dhigay kitaabkiisa qur'aanka jalla jalaaluhu asraartiisa aynu isticmaalno badsanana barakadeenu waa badataa maxaad samaynaysaa waryaan kugu daadin waraaq intaas leeg ama waraaq yar baad soo qaadaysaa noocay doontaba ha noqotee kadibna waxaad ku qoraysaa magacaada magaca maxamed ku qor cabdullaahi ku qor faarax ku qor xamse ku qor cabdiraxmaan ku qor jaamac ku qor farxiya ku qor faatuma ku qor magacaad leedahay rag iyo dumar magacaada adiga lagugu yeeray heblaaye ama hebel bal intiqaadkaas dhageysta cajiibka ku qortid kitaabka musxafka quraanka dhex dhigaysaa muddo isbuucuna ku jiraya maalinta khamiista subaxdeeda ama jumcada subaxdeeda ama isniinta subaxdeeda gelinta saddexda bari mid ka dooratid haddaad khamiista orantay subaxdeeda khamiista kale subaxdeeda ka bixinay haddaad jumca dooratayna jumcaha kale isbuuc ku jiraya haddaad isniin dooratayna isniinta kale marka shuyuuqda in ay noo soo maxaa la dhahaa fasiraana rabi lahaay arrintan uu ka hadlaayo sheekh badbaado uu leeyahay subxaanallah qur-aanka wax dhexgelinaya 7 maalin magacaaga risqiyaa lagu helayaa waraaq yani nadiif ah oo daahir ah ilaa meel daahira oo nadiifaad gelinaysaa oo baraka badan kitaabka qur-aanka maxay iga saaciidanaysaa marka insha allahu tacaala waxa weeye barakaysi iyo bishaaraysi ilaahay nolosha noogu furfuro bas suuradda aan kuu sheegi doono dhexgelinaysid aayada ka mid ah kolkaas akhrinaysaa oo nasiibkaada soo jiiday insha allahu tacaala magacaadi baa ila nasiib qur-aanka ilaahay kuna nasiibsanaysaa usbuuc kadibna waa soo bixisa insha allah noloshii oo dhan baa furfurmaysa xasadkii waa burburisay waxaana kuu sababay sixirkii waad burburisay acmaasha kale shaytaan waa burburisay balaayo intaana idinka dhegeysiiyey intii ugu xiran youtube-ka ku xiran oo axmed waxaa leeyahay sheekh badbaado arrimo badan uu ka hadlaaya ayaantan waxa aan la yaabay anigoo arki jiray dad inta warqad magacyo ku qortaan sawirkooda ku dhagan yahay ama wax ku duubaan hore usoo arki jira waxaas waa arkay ma arkin ma dhahay dadaa arkay oo boorsooyinka ama jeebabka ku wataan waan arkay hadda ka hor way soo marta waxaas maasha allah tabaarakallah siduu sheegayo ilaaha rasaq dadku ugu furaayo su-aalahaas leegaga jawaabay laakiin waxa haddaa cindiqaadsan tahay khalad oo cindiqaadsan tahay cajiib waa diinta ilaahay ama qur-aanka ilaahay ama kitaabka ilaahay aad leedahay magaciigaa ku qoraya farxiyo ama faadumo kitaabkaa dhexgelinaya suuradda hebel aayadda hebel waqti hebelaa dhexgelinaya waqti hebelaa ka bixinaya bal idinkana kommentaadka bal noogu soo jawaaba asxaabta intii ugu xiranaa leeyahay waxaa idinkaga faa'iideynayaa jahligan oo kale ah ummadda lala dhexmaraya
إبكانا إسكجرو سبحان الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون dad naga waaweyn oo cilmi barteen oo shuyuuqa leenahay hadaa wax ka saynin culumta weydii ama culimada weydiiya lagu dhahay ahli dhikirka joogo in la weydiiyo sheekh badbaado ma sha Allah tabarakallah sheekh inuu ku soo galay YouTube-ka waa nin iska dhalinyaro ilaahay khayr ha siiyo laakiin waxyaabaha sida qaabka daran uu diinta u faafinayo aniga waxa dhihi lahaa inuu ka waantoobo waxyaabahaas liana dambi culusa ka soo gaarayo waxaadan cilmi u lahayn oo مثلا 6,000 ay fiirsatay ama 17,000 ay fiirsatay waxaase wada cindiqaadsadeen kitaabkii lacala dhaxgaliyeen sheekh badbaada markaan fariintan gaarsiinayo markii ay waxa uu sheegay ama nicmadii uu sheegay ama farajku uu sheegay oo aayadii ama suuradii uu magacaabay laga dhaxli waayo qofkaas markuu bacda usbuuc ka soo bixiyo dadkii waxa ka gelinaysaa hadoo ducfigi qulubta ku bilowday qulubtii waxa ka gelinaysaa diinta ilaahay in si kale ta dadku u fahansiiso ay qalad ka fahmaan oo wax jira aysan ahayn waxa uu sheegayo wax bidco aslan bataatan wax jira ma ahan kitaab quraan aad warqad ku qoraysaa ama aayadad warqad ku qoraysaa jeebad yani wuxuu ka hadlayaa wax sida xirsi camal loo sameesto asaga wuxuu ku leeyahay warqada waa inay warqad nadiif noqotaa kitaabka ay kugu huursanaataa yani waa isbuuca ku dhaqaaleynaysaa suuradaas dhexdeeda ku haynaysaa nuur qofkaas uu sheegayo waxa laga yaabaa inuu salaadba dukaninba qofkaas uu sheegayo xiriga ilaahi iyo adoonkiisa waxa ka dhaxeeya waa salaada waxa laga yaabaa salaadan inuu sujuudaba wajiga dhigin oo sajadta lillaah dhihin markuu waxa sii sameeyo oo waxa ku sii waayo indiqaadkiisa meel kale isku bedelaya marka sheekh badbaado waxa dhihi lahay waxaas umad kaaga waaweyn shuyuuq kaaga waaweyn aan qabnaaye waxaasoo kaleeto in ummadda lala dhexmaado aaday u farxun tahay yaarahaas calaamaadta saaca lagu jiraa wax cajiib videogaas markaa fiidiyo waxaa umalaynayaa taqriiban waxaa fiirsatay dhowr iyo waxaa fiirsatay saa umalaynayo 10,000 maalintii aan la soo yaabay doraad dhowr iyo 10 ay maraayeen inta fiirsatay oo dad kulay waa luqadda Soomaaliga wax ku hadlo oo yaqaano haddana waxa u malaynayaa videogan dad badan aa fiirsatay oo ilaa waxa u malaynayaa 33 amay fiirsatay marka ummadan saan loo fasahaadinaa wax cajiib 33 17 20 markay ku fiirsato oo Soomaali oo cindiqaadkaas qabta ama oo noqdo cunugaas cunug qurba lagu dhalay ama cunug aan diin soo baranin kuwa yiraahday diin la'aantaas asagaba xaaladiisa xaalad tahay Soomaali hadaan nahay waa kala mushatada noqonay waa kala firdoonay wadamo badan adiyaan badan laha tagnay anaga dad iska sunniya ahayn oo kulay wadankeena waa ku nabad qabnay marka kala haajirnay meel badan aan tagnay marka ilmihii yaryaraay iyo da'dii asaga ka sii yareed oo waxaas fahansiiyay sheekh badbaado iyo wixii la ekaay iyo dad waxaas oo kale cindiqaadkaas ku jiro way jiraan Soomaalida hadaan nahay anaga was ognahay way jiraan dad oo magac hala qorto xirsi hala sameeysto boqorsada hala gashto jeebka hala gashto yani xirsi walaalkiisa wuxuu ka hadlayaa hadda yani quraanka waxaad magacaada qoraysaa meel galinayo marka ka bixisidna hadhow subhanallah usbuuc kadib maalinta galisa maalinteeda ka bixinaysa maanta videogana reaction nooga bixinay aan la soo yaabay bal ila dhageysta wax oo diinta raad iyo sal ku leheen ina ummadda u soo gudbisid sheekh badbaado waa ka waani lahaay aniga shuyuuqda Soomaaliyeedna videogan oo sheekh badbaado in jawaab kulul laga soo bixiyo oo ummadii iyo dhalinyaradii loo soo wacyi geliyo aan ka dalbanayaa sida sheekh umul oo kaleeto subhanallah ilaahay ha noo wada caafiyo culimadeena ilaahay cumrigooda ha noo dheereeyo yaanaas dadka youtuberada waxaan leeyahay wax aad diinta ka fahmaynin inaad sii faafiso ma ahan ama aad dhalinyaradii kaa yaryaraay aa wada fahansiiso waxaas oo kaleeto ummadii Soomaalida waxa ku soo dhaxyaacday qof walba wuxuu rabo iska soo sheegaya qof walba wuxuu rabo wax walba iska soo sheeg laakiin diinta qad ahmar waaye ama diinta qad gaduudan ka dhig yani leen gaduudan saar yani uma taqaanid ma soo baranin fataawadaas maxaa ku geeyay wax dhibaato weyn kaaga imaanaysa oo naftaada reerkaada naag hadaa qabtid oo nin tahay naagtaada maxaa la dhahaa walaalaha hooyada
inay dhibaato kuugu noqotaa ee arrintaas noqonaysa isku bedasho subxaan allah waa aqaanaa wax walba haddaa usoo fasirtid ama waa aqaanaa haddaa wax walba ummaddii ugu faafisid cajiibay leedahay subxaan allah ilaahay hana asturo maanta videogan sheekh badbaadaa soo qaatay oo reaction aan jeclaystay inaan ka bixiyo oo aan la soo yaabay aayadda qaaska iyo suuradda qaaska iyo safxada qaaska oo la gelinayo iyo maalmaha qaaska oo laga bixinayo ilaahay iimaanka hanoo toosiyo soomaaliya arrinta marra xaazim waay arrin kacsan waay ilaahay arrinta hanoo dejiyo cunumadeenana ilaahay hanoo dhaafo cilmigana si fiican haloo dhexgalo qof walba oo youtube-ka ama shaashadan gadaasheeda oo 1000, 10,000, 20,000 ku fiirsanayso waxaa taqaanid inta lasoo fariisaa kuwaanin lahay waa lagu weydiinayaa catig iyo qarriqiiba garbahaada saaran 33,000 markay ku fiirsato ama 20,000 ku fiirsato dembigeeda iyo ajirkeeda ayaa iskale haddii dembi keenta dembigeeda adaa iskale haddii ajir keentana quruxdeeda iyo ajirkeeda adaa iskale videogii maanta meeshaas aga baxaya reaction aan ka bixinaya sheekh badbaado soomaaliya hala iswaaniyo soomaaliya sida loo kala cilmi badan yahay haloo kala cilmi qaato waa aqaanadaas iyo waa daadshadaas yaa lala soo fariisana social media shaashadan gadaasheeda waxaa laga bartaa dhalinyaradii waxay ka bartaan hooyooyinkii waxay ka bartaan maasha allah tabaaraka allah culimadeeni waa ka faa'iideysanaa haddaa intaa sheekh iska soo dhigto waxaa rabta iskaga hadasho ma qurux badno subxaan allah inta kugu xiran oo waxyaabo hore aaga soo sheekayso iska kaa aaminin markay tanoo kale kaa aaminaan iyadan dhibkeeda ay leedahay markay baroobeeyaan bidcadaas adiga dembi weynaa ku leedahay subxaan allah maanta videogii meeshaasa aga baxaya caqliga ha shaqeeyo hurdada ha laga kaco cilmiga ha la barto maanta gacanta ku haysataa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu